بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قاعد دكتور عبد الحكيم المعبشكور دكتور قلينك جودي قليمة عرورته إسبتالك الصومالي السودانيس وحاربنا مانتن إن كهذا موضوع كمية موضوعية دي امتحانها يعني كوعي قلنيني بالشيء الصوماليات وحاربنا مانتن إن كهذا النقطة بكوسابسن بيدياتريك سيرجري أما بيدياتريك أما عرورته أولاً أما قصي قليمة عرورته إيو تخصص عرورته وحاربنا مكان كهذا محلو يقان functional constipation أما سي على الفرق عرورته يعني markii boqolkiiba 30 ilmaha da'doodu ka yartahay 6 sano 7 sano waxa lagu arkaa wax loo yaqaano calool fadhi aad u fara badan oo waxa laga yaabaa maamulba ilmaheeda mid ama laba ama saddex kamid ah inay aad u cabanayso inaan xal u laadahay waxaan rabnaa marka inaan wax yar ka taabano maxaa keeni kara horta in oo anigu uu ku dhaco calool fadhi wuxuu leeyahay qaabab kala duwan ama sababo kala duwan waxa jiri kara qaar oo sababteedii tahay waxyaabo oo congenital ama ilmaha ay ku dhashaan ama mushkilad jirka ah ama macdarihiisa mushkilad ka jirto waxa kamid ah loo yaqaan Hirschsprung disease oo ah mushkilad ka jirta ama problem ka jira macdarihiisa oo aan sidii loo rabay aan u bushgareynin saxarada oo si anigu si normal ugu saxarado waqti walba taas waxa la yiraahdaa Hirschsprung small left colon syndrome waxyaabahaas cuduradaas kamid ah oo badanaa u badan ka qalliinka waxyaabo badan waxaa jira boqolkiiba 60 dadka qaba constipation ka ama ilmaha qaba calool fadhiga boqolkiiba 60 kamid ah cadad aad u fara badan wax problemkoodu ma ahan problem oo ah anatomical ma aha ama mushkilo macdar ka jirta ma ahan laakiin waa cuntada ay cunayaan ama qaabka ay cuntooyinka la siiyo ama qaabka waxa waaye nidaamka maalintooda iyo routine-ka iyaga u nool yihiin cabitaanadooda iyo cuntadooda iyo qaabka ay u nool yihiin wax ka imaado goormaan dhihi karnaa canugan uu qabaa wax loo yaqaano calool fadhi waxaan dhihi karnaa marka canugu criteria ay jirta badan laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa 2 ama 3 waxa kamid ah markii canugu uusan isbuuci hal ama 2 mar ugu badnaan uu saxaroonayo bas isbuuc dhan hal ama 2 mar bas waxa kamid ah haddii canugu ay saxarada ay dhibayso oo canugu marka la anku tuuji lagu fariisiyo ama isku shala fariisiyo aad u sax uu ooynaayo oo san saxarada ka soo dagaynin haddii ay imaatana imaanayso saxara qallalan oo maaragtay oo kadib canuga xataa inuu marba tuujiga la fariisiyo uu necib yahay oo saxarada dhibsanayo haddii ay saxarada ay soo raacayaan dhiig iyo wax la mid ah waxaa kaloo kamid ah waxyaabaha canuga looga shaki karo inuu qabo functional constipation canugan 3 isbuuc ama 2 isbuuc ma saxaroonin laakiin mar ay waxa dhacay inay saxarada ka baxsato oo aragto asoo baalkii oo isku saxarooday marka horena aan 2 isbuuc ama 3 isbuuc aan isku shagelin ama tuujiga aan ogoleen ama saxara aysan u lahayn waxa lagu arkaa ilmahaas qaba functional constipation ka in calooshoodu ay weyn tahay oo ilmaha kale ay ka weyn tahay oo aad u calooshoodu marba ay saxarada ay ku kaysantaa sidee lagu daaweeyaa waxyaabo badan anigu wuxuu u baahan yahay baaritaano oo waxa la yiraahdo barium enema oo horta la ogaado macdaridiisa ama balkii inta ay leeg yihiin ama inay waqti dheer anigu markuu qabo constipation ka waxa jira inuu macdalku uu kala baxo uu fido uu floppy uu noqdo kadibna ay adkaato inay macdalku uu soo bush gareeyo saxaradii talabaad stool analysis anigu waxa baalka electrolytes sida potassium ama waxyaabahaas oo dhan kadibna la sameeyo protocol u gooni ah canugaas oo ka duwan ilmaha kale qaabka uu cunayo waqtiga uu jiifanayo cabitaanada iyo cuntada iyo waxyaabaha loo ogol yahay marka mar walba canuga hadduu calool fadhi ku aragto waxa u baahan tahay inaad la tashato dhakhtarka qaliinka caruurta ama dhakhtarka caruurta marka waxyaabahaas oo dhan si looga baaqsado canugana uusan macnilkiisu u weynaanin oo u fidin waxa loo yaqaan mega colon uusan noqon waxa la rabaa in oo canuga loo bilaabo mar walba lagu arko inuu qabo calool fadhi noocaas oo daa'im oo waqti dheer ah in loo sameeyo protocol u gooni ah cuntiisa qaabka uu cunayo daawo baalkii waxyaabaha oo cabitaanada uu qaadanayo waqtiyada uu jiifanayo waqti uu soo kacayo inta uu telefishinka fiirsanayo waxyaabahaas oo dhan waxay ka qayb qaadanayaan inuu canugu ku dhacdo waxa loo yaqaan inuu canugu ka badbaado functional constipation iyo mega colon iyo inuu ugu dambeyn u baahdo qaliin aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.